waxaan aragnay habeen iskuullada ka mid ah meesha aan joogo inay iskuulkii intay yaabeen ay dhaheen ilmayaashan oo dhan oo aan hayno iskuulka waxa u badan ilmaha Soomaalida ayaa 70% ah ilmaha kaleeto waa 30% oo wadamada kale oo dadka kaleeta ah 70% oo ilmihii Soomaalida ahaa bayse u joogeen gaalada intay yaabeen waxay dhaheen caawa waxaan samaynaynaa wax la yiraahdo Father's Day ma rabna hal hooyo inaan aragno waxaan rabnaa only 70% of these kids inaan aragno maxay tahay aabayaashood marka caawa hooyooyinka dhan waxaan ka codsanaynaa aabaya ilmahan inay maxay tahay idinkana guriga inaad joogtaan waxaan rabnaa ciyaalkiina aabayaashood inaan la kulanno oo aan u sheegno quruxda ilmahoodu leeyihiin iyo qiimaha ilmahoodu leeyihiin si aan u ogaano ilmahan inay aaba leeyihiin iskuulkaas waxaa la ii sheegay hooyooyinkii dhan ilmahooda inay aabayaashii wiceen ay dhaheen war haddaan xataa aan wada noolayn iskuulkii ayaa ku rabay kaalay imow caawa waxay dhaheen iskuulkii waxaan rabnaa inaan samayno wax la dhaho Father's Day si aan u ogaano ilmayaasha Soomaaliyeed aabayaashood meeshay ku maqan yihiin markaan noo yimaadaan anagana quruxda ilmahooda kaliya ayaan uga sheekaynaynaa walaalayaal sheer gareeya waa wax important ah please ha u qaadanina wax aniga aan dadkeena ama aan ku liidayo ama aan ku waxaynayo laakiin waa wax runtu ay tahay inaan ka hadalno oo aan isku toosino runta waxa weeyaan inaan runta intaan sheegno aan qaladkeena saxno because impossible weeyaan adduunyadan Afrikaanka kale xataa lama midnihin dadkii islaamka ah oo diinta islaamka ku dhaqmaya lama midnihin wixii dadkii gaalada ah oo gaalnimada ku dhaqmaya lama midnihin waxaan ka nahay different waxaan nahay dad responsibility ku yaraaday waxaan nahay dad aan fahansanayn macnaha marriage-ka ama ilmaha ama hooyooyinka aan fahansanayn baan nahay wax alla qarinaya mal anaga midnimo qaran waxba ma qarino horta nabarta midnimo qaran anagu siyaasiga qaldanna banaankan soo dhignaa wax alla wixii aan ognahay communitygeena ama nationkeena inay qalad ku tahayna banaankan soo dhigeena ma aha wax la qarinayo gabdhaha laftirkooda waxa u soo socda karbaash weyn ha u maleynina gabdhaha in la dhaafayo gabdhaha barnaamij aad u weyn baan kaga hadlayaa qaladaadka ay raggu dhibaatada ay geysteenna in badan ayay ku leeyihiin anaana og inay in badan ku leeyihiin inta ay ku leeyihiin ana banaanka idin soo dhigaya marka ragow taa ogaada meeshii marka isugu yimaadeen la rabay inay isugu imaadaan nimanka Soomaaliyeed oo la rabay inay imaadaan aabayaashii Soomaaliyeed waxa la ii sheegay inay tageen 70% iskuulkaas balogowya 70% iskuulkaasi waa only waa Soomaali inta kale 30% ayaa waxay yihiin dadka kale oo dhan oo isu tagay cadaan madow dadka kale oo isu tagay Afrikaanka kale dadka kale isku tagay iyo Asiaanka ba 70%gii waxa dhacday waxa yimid 3 father hada wallahi ilaahay magaciisan ku dhaartay inaan beer idin sheegay waa sida la igu dhaartay 3 father kaliya yimid iskuul dhan oo 70% Soomaali ah oo la waayay 3 father kaliya laga helay oo in alla intii kale la waayay aabayaashii dhalay bal idinka yaa dhalay micirkay ka soo daateen ma dhulkay ka soo baxeen ma maxay xagee ka yimaadeen maxay bal dadkaas meesha ka yimaadeen in sheega wiilasha yararka iyo gabdhaha yararka mid walba midka kale waa ka qurux badan yahay waa ka biyo dahabsan yahay mid